بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا كانالكين إكسد أوفيشيال ومركا iyo barnaamijkeena Durxul barnaamijkeena qaybtiisa shanaad qaybtiisa afraad iyo qaybihii ka horeeyay waxaan soo wada qaadanaynaa maanta qaybteena waxay noo martiyaa gabadhii ugu horeysay ee barnaamijkeena ka qayb noqota waxaana noqon doontaa Alaabur Qadan Maxamuud Abdiraxmaan intaynaan guda galin barnaamijka waxay noogu wareejin doonaa Qadan si ay waxoogaa yar hordhac ay nooga siiso barnaamijka عبد الملك يو كنا الكيسبون سلام يا هالكم وانيجو مر قدر محمود عبد الرحمن واحد من السوقان تاس يو ولبا هذا الله أنك يتشعل أنا تشعل كسكي سوقان نوع كستسوقته انت هنا مركا سوقان توجد جل ما أنا قاعد دورنا مساعدة نو دور دونا إن منسوين كان با سوقان تا نو ترين دونت هاد بكتشاش وكذا ويا وحبك حكومينا نوبل وضم ويوسف عن واحد ترني ما صار هذا ضرورة رتي ما صار ضرورة رتي هاد بحكي هذا الساتير الكماتيات داريو مركب لا إلى دكتور ضرورة رتي ديرتو دادو دوية ولا داقي سيد لو قد يرسدا أيان هذا الدقسيني دمبركي سبعة شو بيسيدي دير الكعولاده أنا قلت دادقي هين هدان قبل قدير قادو دلوع هذا ما صد halkay socoto deelayda tiiradiina saarta oo dayaca ka ogaada taariikhda duugiyo cusub way isdaba taale dirham iyo diinaar midkii dollar keensadaba ragga dunida maamula cilmi dayax ku gaareen dababaadka taangiga waxa samada duulaya rabbi nooma diidina jahla dib inoo riday dabaal iyo ninkii seexday bay dunidagaysaay hadii aan dulqaad yeelano dadaalka joogteeno dantiyo dalkeeniyo dadkuba doogsi bay heliyay dalkeena waxa horumariya duul aqoon lahiye waxa baabaasha dumiye kan duruus dhigane hadii aan cilmiga doonanaan daabacano barano daahigama saarnaynan gaanadanaheene daraasaadka aad oo xafida aqoonta dabiib iyo aqoonta ka dhigan dabiib iyo ilayse durba aad oo wada gal oo wada danan yeesha daa'imkeen ilaahay ninkuu darajo dheer siiyo hadba waa la daalibaa daris wadaagiye idinka durba noqon madaxda dalkeena daruuraha dushooda iyo cirka daawasho weega leyl dumay duhurkii bartoo damaca dheeraysta kana diida danaaniya wixii dibidhac inoo keenaya danaheena fiirshiya wixii danaag inoo leh halkii dadan soo dibad bixiya ما شاء الله ما سأد ياد معين بأنه أخرجي أو كوساب سن ديرجلين نساء دلكين يد الجردينة وأنا منسوين كانت كيا يجب يدا كوتش على هاي انتهينا كوا كلو جود جلين وحنو شيء دون تصدق منسوين أو كمدا منسوين كا سير مر كمدا وقدرنا ما صدي نبال هوي كهالسا يو ما سجعل كهالسا يدنا لباس كدورته ما جعلكم هوي way labadaba aan dooranay laakiin waxa noo soo horeysaysaa bal maansada dhambaal hooyo xaladaada dhambaal hooyo maansada kulay suugaantu waa halbeeg wax lagu cabiro inkastoo aan dhameyn karin qiimaha ay hooyadu leedahay maansada nas dambe u dhacaysa ila dhigo dhuuxii layga beeray dhaayahayga nuurkooday dhuuxii lafahaygay dheecaankii layga dhurayay dhambaal rabiisiiyay dhidibadii noloshayday dhabeel quruxlayo dhammayskii ifkay markaan dhalandhoolo quluubtayda dhayay dhigayga i dhaafshay kelmadaha kalgacayl kale macalimadii dhigtay dhacda kale waxaan idhi dunidaba dhadhanu yeelay ka sheedataan ka beermay mawlahayn dhibkaa qari dhankan maanta joogiyo halkay dhalashaday ahayd maba kala dhacaanoo dhadhankiiyo macaankaba adaa i horseeday hooyo adaa dahab dhalaaliyo iga dhigay wax qaaliya adaa dahab dhalaaliyo iga dhigay wax qaaliya adaa dhaymaluulo igu yeedhay adaa igu yidhi hooyo dhaqankeena islaamkiyo diinteenna ha dhinac marin dayaca ka dhowr oo daawaca hooyo adaa igu yidhi hooyo waagii dhalaalaba dhigashada duruustiyo dhaxamaha dhacaayiyo dhibta nolosha waayaha dhexda u xidhay dilkood adaa igu yidhi hooyo marka hoos laguu dhigo ilmo kaa dhacaysaa dhabanadayay ku qoynin adaa igu yidhi hooyo dhayalsiga ka dheerow runta dhagaxa saarin adoo ruux dhaafi kara odhaahaha aadmigu ii ku dhantaalin weligaa adaa igu yidhi hooyo dadaalkaaga joogtee dheeldheelnaha aqbalin dhigaana ugu sarree dhacda kala ducaan soo afmeerayaaye dhani yahay guddoonsada hooyoy macbuudku dembigaaga dhaaf
hooyoy macbuudku kaa deer xumaanta hooyoy macbuudku kaa daa hiblayska hooyoy macbuudku kugu xeer xasuusta xifdiga iyo dikriga iyo qur-aanka. maasha allah, tanna tii horeba kama dhacdo, aad bay iyadnoo macaantay, waxba waqtiga inagu yar ma sii badin doono. maansada jacaylka taas bay noogu soo dambeysiin doontaa, inkastoo qaar badan oo kale sheegtay ay haysid, taas noogu soo koob. koley dee jacayl waa laska wada garanayaa oo waa dareen ama dee qofka ku imanaya. sidoo kale qofka suugaanyahankana dee kole wuu nugul yahay dareenka jacayl. marka anigu maasadan baan ka tiriyay iyo maasooyin kaloo badan. waxaana idhi koley anigu caashaq waa waran ibleyso wadnahaaga saaqa. marka maasadan dhas dambe u dhacaysaa. magaceedana waxa la dhahdaa tusma noqo jacaylkeenu baxsanow badhaantii aragaaga ballantii kulankeenna bartii beedkeenna oo ahayd barbaartii caashaqeenna bartuu ka bilowday bil iyo laba baadiisu ku taabatay beerkaaguu nuglaa bashaaradiisii soo gaadhay baridadiisii soo jaleecday aniguna bilkhayridhi kolkaynu muxibo ku sugno koolkoolinno jacaylka daadahayna caashaqa darmadiisa qaadno daryeello caashaqa duruusuhu qoraan caashaqeenna dadnimadeennu gaadho dunida daafaheeda daruuriga caashaqeenna dayacaynu ka dhowrno taariikhda xusta caashaqeenna xushmayso xeer gudashadeennu jacaylkeennu tusmuu noqon tusaaluu noqon daayarteenna. jasaaka allahu khayran waxsan aljasaa. waa qeybtii shanaad ee barnaamijkeeni duurxul. intan tan iyo ku kulmi doono barnaamijka qeybtiisa 6aad oo halba qofkii inoo martin doona. marna waxaa inoo bilaamayaa wiilal, marna gabdho. maanta gabadhii koowaad ee inoogu martay ahayd barnaamijka waxay ahayd halabuur qadan maxamuud abdiraxmaan. intaan tan iyo barnaamijka qeybtiisa 6aad ku kulmi doono waxaan kaga teginaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.